farmaajaan siin lahaano haddaan xildhibaankii ahay farmaajo ninba kuma doorsan waxaan codkayga siin lahaa oo weliba boqolkiiba boqol aan siin lahaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo sababtoo waxa weeye waxaan siin lahaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo waayo dalka wax badan buu qabtay Soomaaliya dhan buu soo celiyay dalkii dhan buu mideeyay dalka xukuumay lacagteedii uu bedelay lacagna loo keenay laakiin lacagteedii noo soo celinaya Farmaajo saasaan ku dooranay waxaan siin lahaa labadooda ninka la yiraahdo xabiibul malaayiin maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan siin lahaa deni ma siiyeen waana sababaynaya labada laakiin cashuurta buurtina laga qaado iyo dhaqaalaha laga qaado Puntland inaa kula tartantiyo adoo dhaqaalihii Puntland maamulaya madaxweynaheedii aad tiraahdo Farmaajo aan la tartamaya ka yeelimayno dabcan haddii aad maanta ka mid noqon lahayd baarlamaanka cusub ee federaalka ee Soomaaliya yaad codkaaga siin lahayd maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Deni oo ka mid ah labaduba musharaxiinta ugu cadcad ee ku baratamaya kursiga ugu sarreeya ee dalka maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Deni waxay kala yihiin habeen iyo maalin marka waxaan codkayga siin lahaa dee nasiib wanaag kama mid ahay maanta laakiin waxaan codkayga siin lahaa oo weliba boqolkiiba boqol aan siin lahaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo sababtoo waxa weeye habeen iyo maalin bay kala yihiin ninka la yiraahdo Saciidna anigu waaba ka walwalsanahayba oo kollay ma aaminsan inuu wax ka soo helayo meesha la yiraahdo Muqdisho inuu wax ka soo helay ma aaminsan laakiin wadnaha farta waxaan kaga hayaa inuu Puntland ku soo noqdo isagoo maartay ku soo hongoobay xagga marka waa maxay sababta aad Deni aad ugu diiday codkaaga inaad siisid haddii Deni walaal sadar muuqna waa su'aal madoone waxa weeye waxaad u jeeday qaabka uu la dhaqmayay baarlamaankii Puntland waxaad u jeeday qaabka uu la dhaqmayay maxaan ku sheegay isimadii dhaqanka waxaad u la jeeday qaabka uu la dhaqmayay magaalo xeebeedkii Boosaaso ganacsiga waliga dhibaato aan ka dhicin waxaad u jeeday qaabka uu la dhaqmayay gudoonkii baarlamaanka ka horreeyay waxaasoo dhan baad u jeeday marka ummadda Soomaaliyeed maanta waxay ka dirigsan tahay Saciid Cabdullaahi Deni iyo xukunkiisa tijaabana waxa ugu filan intii yareedo Puntland hadda maamulay waxaan siin lahaa ma simeena Cabdullaahi Farmaajo maxamed Cabdullaahi doortay oo aad ku siin lahaa cod waxaan ku doortay waa daacad daalinku la dagaalama musuqmaasuqu la dagaalama muslimiinta xiran buu gargaaraa agoomuhu wax siiya nin daacad oo Soomaaliya kor geyn kara weey farmaajaan siin lahaano haddaan xildhibaankii ahay farmaajo ninba kuma doorsan waayo dalka horumar buu gaarayaa nimcuu gaarayaa barwaaqu gaarayaa nin daacada oo weliya oo muslina oo muumina weey codkayga Cabdullaahi Deni ma siiyeen waxaan siin lahaa Farmaajo siin lahaa maxaa ku siin lahaa ku dar waxaan ku siin lahaa wuxuu noo muujiyay haykal dowladnimo uu noo muujiyay waa nin dadka iyo dalka iyo diinta ka shaqeynaya mabdiisu yahay ninna waxa weeye danayste shisheeyo raba inuu dalka soo geliyo oo dalku diin iyo dad iyo midna dan aan kala hayn ma doonayno marka ninkaas waxaanu codaynaa anagu Cabdullaahi Farmaajo baanu codaynaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo sababta aad Deni uga soo jeestay maxay waxaan ugu diiday Puntland meesha uu ka marahayo iyo Soomaaliya oo dhanba sababtu ay tahay Kenya iyo Imaaraadka uu asagu la haystaa la shaqeeyaa dantooda uu danaynayaa dal iyo dad iyo diin iyo midna ma danaynayo marka codkaygu waa iska cadiyahay haddii aan xildhibaan ahaan lahaa ninkaan siin lahaa waxaan siin lahaa maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay taas sababta aad ku dooratay aad ku siin lahayd maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ku dooranayaa sababo badan waa nin garanaya Soomaaliya waxa ay mudan tahay iyo waxa ay leedahay dunida wuxuu la leeyahay iyo wuxuu ka leeyahayna garanaya ma ahan nin luqunta u hoorsanaya nin dhigiisa wadan dhigiis ah adduunkuna waxa ka dhaxeeya wada noolaansho amni mid dhaqaale mid siyaasadeed dadku ay naga leeyihiin nin u dhagan nugul ma aha inuu caash u lulo sida daaradeed ma ku siinaya haddii aan su'aashaad i weydiisay ka jawaabaan waxaan codkayga siin lahaa xurmad leh maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed aad ku siin lahayd oo aad ku doortay waxaan ku siin lahaa 5 sano ugu dambeysay oo dalka hogaaminayay wuxuu u horseeday barwaaqo iyo bashbash buu u horseeday wax la taaban karo madaxweynaha qabtay weeye ilaa iyo siyaad barre kadib oo 30 sano oo dawladdeenu burbursanay intii ka dambeysay dawladdiiska Cabdullaahi Yuusuf wixii ka dambeeyay madaxweynayaashii soo maray waa madaxweynihii ugu wanaagsanaa oo ugu waxqabadka fiicnaa ugu wadanisanaa oo dalka soo maru ahaa sababta aad Deni aad uga soo horjeesatay inaad codkaaga siisid bal maxay tahay
deni waa madaxweynihii Puntland deni waa madaxweynihii Puntland haddana wuxuuna ku fashilmay inuu Puntland gudaheeda hogaamiyo Puntland waxaanu ognahay inay tahay 9 gobol haddana gobollada maqan sicir barar baa dalka ka jira shidaalka tanaga wuxuu marayaa kaalmaha hadda tagtid $20 iyo $25 sicir bararka iyo maciishada kacdana waxa keenaya lacagta shilin Soomaaliga hay'adda dani joojiyay baarlamaankii waa ogtihiino 8 isku maalin buu cayriyay gudoomiyihina iyo staafkiisina waa laayay waxyaabo badan buu baabi'iyay wax uu hogaamin kara haba yaraatee ma jidho baaqan halkan waa uga dirayaa waxaan rabaa ugu baaqayaa dani ugu baaqayaa musharax hadda tahay adoo kaligaaya oo dhaqaalahaaga haysta ama imaaraad ha ku wata ama Kenya ha ku wata kolba dawa dhalif baa ku wata adoo kaligaaya ninka ina la tartantid oo dhaqaalahaaga kula tartantid laakiin cashuurta buurtina laga qaado iyo dhaqaalaha laga qaado Puntland ina kula tartantiyo adoo dhaqaalihii Puntland maamulaya madaxweynaheedii aad farmaajo la tartamaya ka yeelimayno ninna dalka u baahan ninna dalku u baahan yahay marka anigu ninka uu dalku u baahan yahay codkiisa siin lahaa waana farmaajo maxaa ku dooratay farmaajo aad codkaaga ku siin lahayd sababtoo ah dani hankiisa koowaad waxa weeye in uu wuxuu hankiisa koowaad wuxuu noogu sheegay inuu yahay in uu farmaajo fiila Soomaaliya ka saaro ma aha hankiisu inuu noqdo madaxweyne dal iyo dad hogaamin kara sababta aad ku dooratay farmaajo maxay sababta aan ku doortay dalka u baahan sababtoo isbedel buu sameeyay Soomaaliya meesha ay taagneed iyo meesha uu hadda u marsiinayo waxa la isbarbar dhigi kara ma intaas sanana waan u soo taagnayn dalka hadda Soomaaliduna hore waxay ugu mahmaaday nin walba hankiisu intuu leeyahay haybadiisu leegtaa waxaan siin lahaa labadooda ninka la yiraahdo xabiibul malaayiin maxamed cabdullaahi farmaajo ayaan siin lahaa deni ma siiyeen waana sababaynaya labadooda waxaan nina ku siiyey waa sababaynaya waxaan ku doortay nina ku siiyey nina ugu diiday waxa weeye maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin aadaab leh waa ninaan waxa weeye shakhsi personal attack aan lahayn oo aan lahayn macnaha shakhsigaasaan anugu la diriraya waa nin horumarka ciidamadii dhaqaalihii amnigii wax walba horumariyay way waxa salaam maxamed cabdullaahi farmaajo waayo dalka wax badan buu qabtay Soomaaliya dhan buu soo celiyay dalkii dhan buu mideeyay deni dalka xukuumay lacagta iyadii uu bedelay lacagna loo keenay laakiin lacagta iyadii noo soo celinaya farmaajo saasaan ku dooranay codkay waxaan siin lahaa maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ku taageeray waxyaalo badan oo Soomaaliya u qabtay waxa kamid ah macnaha aragtida ahayd maalinta u dambeysay 12 Abriil bay ahayd ciidanka iyo wixii la soo bandhigay waa garanaysaan Soomaaliya awoodeeda macnaha inay soo muuqatay waxyaalo badan sida Kenya kale macnaha uu riixay cadawga dhan buu aad u riixay oo kale Soomaaliya aad u taagayay waa ninka kaliya ma taqaanaa qarnimada ku jiro oo asle maanta Soomaaliya dad ku soo baxo waxay isku taagaysaa lugaheedo adduunweynaha la tartamaysaa walaal waa dhawahay codkayga waxaan siinayaa maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ku doortay wax qabadka uu qabtay oo cad baan ku doortay maxay sababta u sheegay deni aad codkaaga u siinaa deni codkayga waxaan u siinay waxa la tii Sawdariyada tu kala ku dara Puntland deni waxaan leeyahay wuxuu qabanayaa Soomaaliya aad Puntland baa u baahan ha uu qabto marka maxamed cabdullaahi farmaajo aan codkayga siinayaa farmaajo codkaaga siin lahaa maxay sababta farmaajo codkaaga ku siin lahaa sababta aan ku siin lahaa waxa weeye waxa tilaabo qaad dawladnimo nooga muuqatay Soomaaliya meeshay taalay buu asagoo tafaal la haysto buu isku dayay inuu meel mariyo oo Soomaaliya qaran ka dhigo oo sidii Soomaaliya looga adeegan jiray buu hor istaagay waxaad ku garanaysaa maanta oo uu madaxweyne 6 sano 5 sano ula 4 sano ula iyo sanadkii lixaad oo u socda u joogay hal sandaqad kama dhisan kuwii la midka ahaa oo ra'iisul wasaare hadda uu magacaabay yahay waa aragtay dhulkii militariga soo boobayo iyo waxa musuqmaasuqa jira marka Soomaaliya nin ka dhisi karaaba maanta waxa weeye nimaan waxba ka doonayn energy ku bixinaya sidii Soomaaliya u noqon